macallinow inagu haddaan Soomaalina waxaan nidhi quraan lix arrimood baa lagu baran karaa waxaa ka mid aha quraan waxaa lagu baran karaa hooyo qalqaalisa hooyadu hadday ilmaha subaxdii intay diyaariso hooyada la kulanto wayra tira ilmaha subaxdii si fiican u diyaari hooyadu ilmaha subaxdii haddii inta iyadu salaada subax u toosto ay tukato oo si fiican u qureeciso si fiican ugu labisto ay madaxa u soo shanlaysa tiraahdo hooyo khayr allah ku siiyo intay dhunkato orado cashirkii aad nin khayr baa tahay waxbaad ka keeni ana huba macallin fiican baa ku dhiga ay la soo dardaaranto waad garan kartaa ilmaha waxa uu istaagay nisfi kamida moraalkiisi laakiin hadday iyadoo jiifta intay lugta ugu tilmaanta tiraahdo balaaya kugu dhacday meeshii baas baa tagi baa meel lacagtun lagu urursada alla anigu meesha hadda nicbiya barbalorad kitaabkii meelaha ka dayo kitaabna garan mayno orad meelaha ka dayo wararad marun baad wax cuni doontaa ee nadhaaf oo iyadoo lugta ugu tilmaamaysa ay soo saartana ilmahaas inaanu cashir fahmaynin waad og tahay oo aan waxba baran karin waxaa la yidhi hooyo qalqaalisa aabba quuris leh maalin walba inta ilmahaaga la soo saaro in la yidhaahdo wararad fiigii la kaalay meeshu dee fii bay ku kala socotaa nadhaaf iyadana waa moraal dil weey aabba quuris leh hooyo qalqaalisa loox qaad weyn waagi hore loox baan quraanka ku dhigan jiray macallin qaariya walad qayla dheer ya quraanka lagu bartaa baan oran jirnay macallinka qaariga ee codkiisa la maqlo waladka qaylada dheer ee quraanka markuu la ximinayo markaaba qofka dariiqa mariba uu maqlay warkaas suu wuxuu akhriyo muxuu ahaa saaka war macallin kuwa kale aba ku maqlay war macallin war kaamaad ka qabatid oo ka saxdid macallinku inuu tahaawun samayn baa la rabaa عجز إنه كم مقام الربا إنه قرآن كلا خلده هي استهانيسن وفضوضيسن بالربا وحيا باسين هرتكم ما يهجرنا قرآن كوحوها مهنا أي ندتك كجسوا عنه قرآن كوحوها وحدتك الصومالي ذا اللي جويا قانة وحبرته قرآن كوحوها وحينا وحكلبرن إلى قرآن كبرنه وحنكو جبينا يا جبر مصرية وهو مسلمة يا سقطيرد وحيكان جرت قرمدا بدوبي كل سجال بقولية تضباطنات كيف يكاهيد تضباطني اللحدي وحي قرطي كتاب ليدا هذا قبل وحي ليدا الدكتورة زهيرة سكري وحي قرطي كتاب ليدا هذا الإسلام الثوري كعدون كي إسلام كعالم ككسمي وحي تري مركان قرمدا مذوبي لشقينا يسقطير كجودها أي آد وحلو مراجعين جريبي تري جميستياشي يا وحي سمايين يسوي وحق جميستين يعني ما كان رأي ربع قرمدا مذوبي هدي له جودها قال هذا عدان ككلية يعني نقول ضبط صعد بين نسكنه وحي إيش يا بيتري إن سبب مدارس بدن أفريقيا كتير يا قرآن الله حري وسببه محاكو هذايا تعليم محاكو هذايا عن مركا ديني كل السنين الله سرم مريي وتديني الله سيسيي إن أي كم إذا هيد فكرة لقاطية وهيد تتكينو جمي سنة أو نن سادين أنهاي إلا تديوج مسلم كأمويه وردت كمسلم كأم حين سادي أهل شرف النوجو أركلايهين أو نين يجا كلي تونا النوجو أركان حتى هذا يكون دونك أقول لي تيهين gabadhaasi waxay tiri waxay yiraahdeen sirta qofka muslimka inuu cimlaaq yahay oo maskaxdiisa mooyato kale aanu qaadan karin badiyaba waa quraanka baa la yiri quraanka waxa ku jira baa la yiri muslimiintu ilmaha waxay baraan isagoo 7 jir ama 9 jir ama 8 jir oo wax kala baran baa waxa la baraa kitaab ay ku jirto konton kun oo kelmadood oo mufradul kalimaha oo kala macna duwan waa quraanka kariimka weey konton kun oo kelmadood oo luqawiya ku jirta bay tiri ilmihi marka cimlaaq mu noqonaya abqari qofaan dadkanba waxba u arag buu noqonayaa maskax ahaan iyo cilmi ahaanba u bislaado naadija gabadhaasi marka waxay sheegtay inay taasi keentay in Azhar ninkii ugu sareeya iyo madaarista Ingiriisku lahaayeen ku lahaayeen Masar Azhar ninka ugu sareeya iyo madaarista Ingiriisku lahaa ardayga thanawiga dhiganaya inuu ardayga thanawiga dhiganaya ka mushahar sareeyay ninkii Azhar u sareeyay إنجليز وكلا ساسة ولا دجال من بيتر إنت علين تودا نلا قيمة يا وحيابها مادجة تنقران كي يدين تن أد هوس لوجو دقوا عكت هوس ده الجليو لكن واحد الفرنسيس كوكالية طلياني يوحي بعد إكسدين مدارس القرآن كذا إن توس لو حدا الله صاحر جبي جذا زهيرة سكري كتاب كذا مركز تعصي كشة المها وحو معنا كل هاي محي وحو معنا كل هاي كتاب القرآن كفهم سين تتفهم سيس